السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada janaalkayga fadlan haddii aad ugu cusub tahay kusoo biir familka subscribe-ka itaabo shantan xabo oo coin haddii aad maanta maal gelisid waxaa helaysaa faa'iido. shanta coin waa kuwe kan koowaad aan ka bilaabayo waxa waaye pancake alla pancake swap hadda saa u jeedaan macaawadan wuxuu maroyaa 10 pound oo wadankan Ingiriiska dollar ahaan haddii la dhaho $13 $14 calaa coin waay ka hor wuxuu marayay 8 pound iyo 40 iyo xoogaa kadib kor ayuu soo kaciyay 9 pound ayuu imaaday kadib haddana hoos u dhaciyay hadda marka 9 pound iyo 40 ayuu maroyaa isbuuc ka hor waay marka 8 hours ago na maanta waaye 8 saacadood maanta waxa uu marweeyaa u jeedaan 10 pound iyo wax la jiro ilaa bishan oo ka dhamaanayo hoos uma soo dhaadhacayo waxa waaye pancake waay markii ugu badnaayna oo wuxuu tagay all time high wuxuu tagay 33 pound dhibic 38 b meesha ku qoran tahay all time high isbuuc ayaa ka haray marka wali waqti ka faa'iideyso sanadku soo baxayna 2020 waaye coin-kan haddii aad rabtid inaa waxyaalo badan aad ka sii ogaatid waxa akhri kartaa meesha ku qoran tahay info waxa waaye wixii warbixin dhan ayuu ka siinaya marka halkaas ayaad ka sii akhri kartaa laakiin coin-kan mid hadda hoos u soo dhacayo uma eko 10 pound oo hadda oo marayo kor ayuu ugu sii soconaa marka wali fursad haysataa kaas waxa ka dhigataa targetkada koowaad isla caawaba inaad maal gashatid oo lacag ay gelisay okay kan labaad waxa waaye xilligan hadda la joogo Polygon wuxuu joogaa 1 pound dhibic 62 b waa number 2 waaye listiga labaad waaye kan sida hadda u jeedaan kor ayuu u socdaa haddii aan fiirino isbuuc ka hor meequu marayay isbuuc ka hor gaduud oo sheegaya yani hoos u soo dhacay wuxuu imaaday 1 pound 38 b meequu taagnaa sax bil ka hor wuxuu marayay 88 yani $1 xataa ma dhamo ama 1 pound marka 88 ki marka bal kabaran saddex bil ka hor qofkaas haddii oo maal fiican geli lahay 88 b ayuu marayay maanta meequu hay lahay soo qaad hadduu geli lahay $100 taabta isku dhufto commentigan ugu reeb insha Allah kan waxa waaye coin-ka labaad oo hadda haddii aad maal gelisid labadan isbuuc oo dhiman faa'iido weyn inaad ka helaysid taas anaa ka hubo coin-ka saddexaad waxaa ka mid ah mana hadda wuxuu maroyaa 2 pound iyo 56 b ayuu maroyaa 4 o'clock saakeeda wuxuu marayay 2 pound iyo 25 b kadib ayuu hal mar wuxuu kor u booday 2 pound iyo 50 ilaa wuxuu tagay 56 okay haddii aan fiirino isbuuc ka hor meequu marayay isbuuc ka hor wuxuu marayay 2 pound iyo 90 ayuu marayay kadib ayuu hoos u soo dhaciyay saa u jeedaan 78 60 49 50 coin-kan waa kii saddexaad fursad ayaa weli haysataa fadlan maal gasho ka faa'iideyso intoosan kugu gaarin $5 hadduu wuxuu joogaa 2 bar ayaa hadda isla eegeynaa kan afraadna waxa waaye Solna waxa waaye number 4 waaye kaalinta afraad ayuu soo galay saa u jeedaan wuxuu marayay 128 hours ago Solna hadda wuxuu joogaa 134 pound dhibic 99 waa 135 iska dhig galabta wuxuu marayay 120 ayuu marayay bil ka hor ayaa fiirinaynaa haddana bil ka hor wuxuu marayay 161 hoos ayuu soo dhaadhaciyay 53 kor ayuu u kacay haddana 164 kadib wuxuu imaaday 140 kadib ayuu wuxuu yimid 125 marka coin-kan la yiraahdo Solna waxa waaye top 4 waaye kan haddii aad laba xaba ka iibsan kartid haddii hal coin ka iibsan kartid iibsa aan ku dhaha kan waxa ka dhigataa afraad iyo san ku dhaaf intuu taagan yahay 135 ka faa'iideysta wuxuu u sii socdaa 150 ilaa 60 oo taga dambeeyna waa crypto sababtoo ah last ugu dhigo waxa waaye crypto isaga hadda 42 ayuu maroyaa all time wuxuu ahaa 73 b ayuu tagay markuu ugu badnayd waa 73 b tagay laakiin bishan intaysan dhamaanin waxa la filayaa inuu tagi doono $1 marka wali fursad ayaad haysataan ee ka faa'iideysto maal gashta hadda u jeedaan wuxuu taagan yahay 42 b ayuu taagan yahay wali 50 b ma dhamo koor haddii aan fiirino wuxuu marayay 44 43 dib ayuu hoos u soo dhacay 41 kadib 40 haddana wuxuu joogaa 42 rangiga wuxuu ku jiraa 15aad waa rangiga 15aad waa yani wuu fiican yahay haddii aad rabtid information badan aad rabtid inaad ku ogaatidna
waxaad tagaysaa meeshay ku qoran tahay aboutcrypto.com info. halkaas ayaad ku dhufanaysaa, halkaas ayaad ka akhrisanaysaa wixii faahfaahin aa ugu baahan tahay. shanta xaba hadda ujeedaan shantoodaba waa haystaa, maal ayaa gashtay, suuqoodana aad iyo aad u shidan yahay. suuqoodana hadda ayuu kor usoo kaciyay. marka waxaan dhihi lahay Soomaali Maxamed meel walba ay joogtaan, haddii aad isticmaalaysid crypto ama Binance haddii aad isticmaalaysid magacyada ama meesha oo ku wada qoran ayaad halkaas ku qoraysaa. waxaa laga yaabaa coinska qaarkood inaysan ku jirin Binance, marka haddii aad crypto haysatid laakiin shantoodaba waa ka wada heli kartaa. crypto haddii aad isticmaalaysid shantooda way ku wada jiraan. shanta ugu fiican oo maal la gashan karo waa idin tusiya asxaabteyda. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.